dowladaha khaliijka waxa muuqatay inay haatan iyagu si iskooda ugu khasbanaadeen xiritaanka shirkadaha shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dalalkaas si ugu yaraan xarumahaasi uga badbaadaan bartilmaameedsiga Iiraan ee joogtada noqday. saaka shirkadda Aramco ee Sacuudiga tan ugu weyn caynkeeda ee gobolka bariga dhexe ayaa boqortooyadu shaacisay in la xiray kadib markii qayb ahaan shirkadaas ay ku qarxeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Iiraan. isla goorta ay Aramco beegsadeen Iiraaniyiintu waxa ay sidoo kale duqeeyeen xarumaha gaaska dabiiciga ah ee Qatar, taasoo iyana dhashay isla go'aankii mid la mid ah inay Qatar inta qaadato si rasmi ah u hakiso soo saarista cayn-shidaaleedkeeda dabiiciga ah ee LNG. tani waxa ay daboolka ka qaaday xaddiga khatarta baahsan ee Iiraan u geysanayso ilaha dhaqaalaha wadamada khaliijka, midaasoo la warinayo in Iiraan uga gol leedahay sare u qaadista culaysyada ay doonayso inay dhaqaalaha dunida saarto si Mareykanka iyo Israa'iil dhaqso ugu joojiyaan gulufka ka dhanka ah dalkan. maadaama gacanka uu maro shidaalka ugu badan bariga dhexe ee Hormuz u xiran yahay Iiraan, waxa ay sidoo kale doonaysaa inay saameyn degdegsiinyo leh oo dhaqaale ku yeelato wadamada gobolka laf ahaantooda si qayladhaanta dhaqaale cirka isugu shareerto, taasna u noqoto xagasha guul ay ka hesho halganka isdifaaca ah ee ay kula jirto ducaha ku duulay wadankan. isla maanta Mareykanka laf ahaantiisa ayaa dharbaaxo darani ka soo gaartay bariga dhexe kadib markii 3 ka mid ah diyaaradaha F-15 lagu soo riday gudaha dalka Kuwait. taliska guud ee ciidamada Mareykanku waxa uu sheegay in dowladda Kuwait oo diyaaradahaas ku qaladay kuwa Iiraan iyadu soo riday, hayeeshee Iiraan ayaa docdeeda sheegatay beegsiga diyaaradahan sida lagu daabacay shabakad wareedda Tasmiin lagu magacaabo ee ka soo baxda wadanka Iiraan. muuqaalada diyaaradahan oo isku mar la beegsaday si dhaqso lahaydna u burburay ayaa baraha internetka lagu wadaagay. tan hadalhaynta dhalisay ayaa ahayd in diyaaradahan casriga ah caynkaas fudud muddo aan daqiiqado ahayn loo burburiyay. wararka kale ee xiisaha leh ee xiisada bariga dhexe waxaa ka mid ah kuwa aan xaqiiqadoodu weli sugnayn oo tibaaxaya in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan diyaarado drones ku weerareen xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo taliyaha ciidanka badda nidaamka Yuhuudda. docdeeda Israa'iil weli wax wara kama soo saarin sheegashada ilaalada kacaanka ee beegsiga Netanyahu. qodob ayaynu bartan ugu dul istaagi doonaa wararka sida dhaqsaha leh isaga soo daba dhacaya ee bariga dhexe ee adiguna inala joog.